saaka waxaa halkan soo fadhiisiyay anigoo wasiirka arrimaha gudaha arrimihii ka dhacay shalay galinkii dambe iyo xalay magaalada waxaa dhacday mudaharaadyo fool xun oo dhibaatooyin badan geystay dadweynaha waxaan ogeysiinayaa marka mudaharaad la sameynayo mudaharaadku dariiqyo loo maru leeyahay ruqsad baa la weydiistaa dariiqa baan marayaa baa leeyahay halka baan gaarayaa baa leeyahay marka dariiqta mudaharaadku sii marayana marka ruqsad la siinayo waxa la ilaaliyaa sidii mudaharaadka dariiqa uga bixin oo dadkii iyo dunyadii agagaarka u saameyn baa la eega waxa dhacday shalay galabtii mudaharaad aan sharciyeysnayn oo dad badan ay wax ku waayeen ha noqoto baawr la jajabiyay ha noqoto dukaanno la bilqaystay waxaasina wax aan ogolaan karayno amba aan ruqsayn karayno ma ahin amba aan dul qaadan karayno ma dadweynaha waxaan uga digaynaa in ay mudaharaadyada caynkaas oo kala ah ay dib ugu noqon intii shalayna gaadhay way nagu filantay intii shicibka shalay gaadhay way ku filantay annagu waxaan mas'uul ka nahay dadka isku socodkooga alaabahooga iyo amnigooga amnigaas inuu qofna ku xadgudbo ma ogolaanayno hal ogaado taasi waa dhagay far dadkan mudaharaadka hor socdaan biciyaalka yar ama dumarkan la soo ururinayna waxaan leeyahay halkan nagu wado horta bal isweydiiye maxaan ku socdaa maxaa dariiqani wada wax kasta wuu dhici karaa laakiin wax kasta nidaam buu leeyahay dowladnimadu nidaam bay leedahay nidaamka dawliga waa in la tixgeliyo weeyaan wadanku sharci buu leeyahay sharciga cid ka sarreysa ma jirto qaraabo ha noqoto saaxiib ha noqoto oday ha noqoto islaan ha noqoto inay yar ha noqoto nin kasta oo sharciga ku xadgudbana waa la soo qaban doonaa oo sharciga la tiigsan doonaa marka dadku ha ogaadaan meeshani waa wadan sharci leh oo nidaam leh nidaamka ninka ku xadgudbana isaga yaqaanada in la deynaysa ha ogaado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته